halkan waxaa laga cilaamiyey oo waayeelkii iyo madax dhaqameedkii labadan arda ay cilaamiyeen in la isla qaatay xabad joojintaas oo laga bilaabayo maanta waxa la isla qaatay in ay hirgasho anaguna haddii ilaahay raalli ka noqdo halkan waxaa ka hadlay jief caaqil maxamed nuux wuuna dhaariyey annaga ciidamada haddaanu nahay wuuna dhaariyey wuxuu yidhi ilaahay baan idinku dhaarsheeye ninkaa qori ku qabataan ha sii daynina taas waa ballan waannu ballan qaadaynaa waxaannu ku ballan qaadaynaa in ninka saacaddaa laga bilaabo qori lagu qabto ninka lagu arko isagoo meel ku jira ninka ciidanka lagu arko isagoo uruursan kuruuga lagu arko isagoo nabadgelyo darro wada cid allaale ciddii hawshaa nabadgelyo xabad joojinta lagaga dhawaaqay muddada la soo waday ee tacabka badani ku baxay maanta markii ugu dambaysay labadii ardaa ee wax kala gaadheen ay isu yimaadeen cid allaale ciddii ka hor timaada waxaannu ku qabanaynaa gacan bira baannu ku qabanaynaa waxaannu ka gudanaynaa waajibaadkayaga waxaannu geynaynaa xabsi baannu geynaynaa aanu ka soo bixin ciidamaduna waxay u fasaxan yihiin wax allaale waxay qori arkaan inay gacantooda ku qabtaan in badan baa laga warwareegay in badan baa ceelaf weyn shaqaaqada ku soo noqotay in badan baa dad masaakiina iyo dumar iyo carruurna isku dhex dul qabsaday in badan baa dadkanu dub u dhacay aad iyo aad waxaan u soo dhowaynaynaa go'aanka odayaashu qaateen annaguna haddii aanu nahay ciidamada qaranka bilateri bilays asluub ciidan kasta oo qaranku leeyahay waxaannu qaadan doonnaa doorkii aanu lahayn haddii ilaahay raalli ka noqdo idinkana waxaannu idinku baraarujinaynaa dadkiinna dhallinyarada waayeelka waxgaradka haweenka ardayda mid kastaaba inuu nabadgelyo dhinac taago haddii nabadgelyo la waayo waxa ma jirayaan haddii nabadgelyo la waayo nolol jiri mayso haddii nabadgelyo la waayo ceelaf weyn sida ka muuqato waa arkaysaan nabadgelyo darradu waxay u keentay sanadkii shanaad baa la gelayaa sanadkii shanaad ayaa haddeer muddo yar ka hadhay inta dadkan xabadi ka dhex qarxaysay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa oo ugu ducaynaynaa oo qalbi wanaagsan ugu ducaynaynaa odayaasha iyo waayeelka iyo waxgaradka gartay maanta bal inay siyaaska hoose iyo ka soo unkaan annaguna waannu isgarab taagaynaa waxaannu fulinaynaa iyadoo awalba ciidamada qalabka sidaa ku amranaayeen nabadgelyada haddana waxaannu fulinaynaa oo aannu adkaynaynaa inaannu go'aankii dawladda iyo ka isimada iyo salaadiinta aannu si dhaqsaa u hirgelinno oo ay ka muuqato haddeer ceelaf weyn ay ka muuqato oo caawa ay ka muuqato oo galabta ay ka muuqato oo meheradaa la furo oo guryuhu isu wareegaan oo dadku isdhex galo oo bulshadu ay noqoto bulshadii wax wada lahayd ee walaalo ahayd ee awalba jiri jirtay ee shayddaanku ka dhex adeegay aad iyo aad waxaannu idinku baraarujinaynaa ilaahay baan idinku dhaarshay reer ceelaf weynow in badan baa dubu hadheene nabadgelyada ka qayb qaata oo taa maanta odayaashiinna idiin keeneen ee salaadiintiinna iyo boqorradiinna keeneen ee jiifafkiinna keeneen ee aqoon-yahankiinna keenay ee kuwii hargeysa joogay iyo kuwii meel kale joogayba ay isugu yimaadeen inaad ka qayb qaadataan oo gacan adag aad nabadgelyada ku adkaysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin